salaamantiin asxaabta meel walba aad joogtiin isku soo noqod wanaagsan iyo casharadeenii taxanaha ahaa oo ku saabsanaa dhanka wadista gaariga. inkastoo maalmahan oo hakad yar oo naga galay sababo la xiriiro safar aan aaday, balse hadda ayaanu meesha ka sii bilaawi doonaa casharadeenii taxanaha ahaa. cashirkeena maanta muxuu ku saabsan yahay? sida aan wada ognahay haddii aan dib u milicsano casharadeenii hore oo aan hore u soo qaadanay waxaa ka mid ahaa baabuurka sida oo u yaalo ama qeybaha aan isticmaalayno iyo sida loo isticmaalo. cashir kalena wuxuu ahaa sida baabuurka loo dhaqaajiyo ama loo bartiireeyo. sida hadda u wada jeedin waxaa ku jirnaa meel barxad oo baarkeering ah oo loogu talagalay dadka cusub inay bilow ay ku bartaan bartiireeska, dhaqaajinta iyo waxyaabaha la mid ah sidaan hore u soo wada aragnay casharadiinii hore. haddaan dib ugu milicsano ahay cashirkan maanta waxaan kaga hadli doonaa hadduu alla yiraahdo sida qofka oo iskugu xakameeyo booska uu leeyahay. maxaa yeelay jidka sida aan wada ognahay baabuurna waa sii socdaa, baabuurna waa soo socdaa. marka meesha aad leedahay, qadka aad leedahay sida iskugu xakameyn lahayd. sidoo kalena waxaan cashirkan ku sharxi doonaa sida baabuur ama hortaada oo u istaagi lahayd ama samaafar qofka inuu istaagaa looga baahan yahay, baabuur hortiisa doo ka soo baxayno ama baabuur hortiisa yaala inuu ka istaago iyo waxyaabihii kale oo jidka hortiisa ka soo baxa inuu ka istaaga ayaa loo baahan yahay. sidoo kale cashiradaas aan ku sharxi doonaa nala socdo. marka ugu horeysa asxaabta qofka waxaa loo baahan yahay inuu haysto wax uu ka dhigto calaamad. tusaale ahaan hadda anagan waxaan calaamad ka dhiganay, waxaa horteena ugu jeednaa kartoon oo calaamad aan ka dhiganay si aan ugu barano xoogaa. qofka waxaa loo baahan yahay in uu istaagi karo sida hore inuu soo sheegnay. kartoonkaas ayaana waxaan u istaagi doonaa masaafo dhan 1 mitir. kadibna sidoo kale mar labaad waxaanu sameyn doonaa anagoo nus mitir u istaagayno. mar saddexaadna waxaanu sameyn doonaa anagoo aan u saari doono afka u saareyna ayaana ka dhigi doonaa camal waxaanu ku dhici rabna camal aan ka dhigi doonaa. hadda waxaanu sameyn doonaa dhaqaaq oo halkan aan ka dhaqaaqayno si aan u ag istaagno wax ka yar adiga wax 1 mitir dhan camal oo qiyaas ahaantii ayaanu sameynaa. sahaadku uga jeedin waa kay si deganaansho ah qeybaha ugu dambeeyo si deganaansho qofka inuu u soo socdo waayo si deganaansho sa u jeedin waa kay waxaan u istaagay 1 mitir waxdan. marka xigto asxaabta si aan horey u sheegay waxaan u istaagi doonaa masaafo nus mitir ah. hadda dhaqaaqaanu sameynay. qeybaha dambena qofka waxaa loo baahan yahay mar walbo in uu socdo si deganaansho oo tartiib ah ayaa loo baahan yahay. haddana qeybtan u dambeysa asxaabta waxaan isku dayi doonaa inaan u istaagno kartoonka calaashan waxaan ku dhici rabno ama meeshii u dambeysay ayaanu ka dhigi doonaa sida arki doontiin. marka waa muhiim qofka inuu isku dayi karo siyaabooyin kala duwan inuu xoogaa masaafo istaagi karo cabiro kala duwan. waa aad ay u wanaagsan tahay. qofkana waa inuu isku day badan oo sameeya. markaad saa u jeediin waxaan u istaagaynaa si aanu ku dhici rabno waa kaasa u jeediin. sidoo kale qofka waxaa loo baahan yahay inuu bixi karo gadaal oo muhiim tahay baabuurkana oo maarey karo ama xakamey karo. dhowr mar inuu ku celceliyo waa muhiim. sida wada jeediin waa si deganaansho inuu ka istaagi karo nus mitir ka yar camal. haddana waxaan isku dayaynaa inaan ka dhex baxno labadaas kartoon oo calaamad aan ka dhiganay si deganaansho anagoo ka dhex baxayno oo booskeena isku xakameynayno. qeybaha dambe si tartiib ayaa uga baxaysaa. micnaha waxay u dhigmataa adigoo meel cariiri ka dhex bixi karo qofka inuu maarey karo in kale ayaa lagu kala ogaanaa. marka waa muhiim. sida aad arki doontiin waxaanu ka haysanaa 2 calaamadood oo kartoon. marka qofku waxaa loo baahan yahay inuu baabuurka xukumi karo steering ahaan, inuu maamuli karo gadaal iyo hore. marka waxaan halkan idinka tusi doonaa sida wada arki doontiin 2 kartoon oo aan ugu talagalnay qofka in uu waxa waay u isticmaalo ama oo qofka maxaa la dhahayo
isku dayo inuu ka dhex baxo labadaas kartoon marka sidaas darteeda qofku waxa loo baahan yahay labadaas kartoon inuu ka soo dhex baxo oo tago qaybta hore oo haddana markaa soo laabto